waxaan shaki ku jirin in nafta aadanaha lagu uumeeyo xumi iyo samaan, halgan aan dhammaanna uu ka dhexeeyo labadaas. Maanka qofka oo ah rugta garashada iyo ogaalka, waxa ugu weyn ee uu taro waa kala soocidda labadaas. Damiirka ayaa ah gaashaanka samaanta, ruuxdana uga hiiliya nafta xumida doonaysa. Haddii uusan damiirku noolayn, shaqadiisana uu gabo, qofku ma waantoobayo. Si kasta oo uu og yahay waxa xun in ay belo iyo baas yihiin, in uu iska ilaaliyana ay waajib ku tahay. Halka laga go'aan qaato ee ficilada qofka hagta oo qalbiga ah, aadanahana lagu adoonsaday inuu sifeeyo, waxa jiheeya waa damiirka. Qiyamka iyo akhlaaqda wanaagsan cidda ay martida u yihiin ee howlgelintooda ay ka sugaan waa asaga. Dagaalka ugu culus ee ay nafta iyo shaydaanku qaadaanna waxaa inta badan uu ku wajahan yahay waa xubintaas xilka culus la saaray. Unugga ugu yar ee bulshadu waa qofka, habdhaqanka dadweynuhuna waa isu tagga wadarta qofafkaas. Haddii ruux walba ishagaajiyo, noloshiisana uu ka ilaaliyo hagaasidda iyo halowga, bulshaduna waa ay fayoobaanaysaa. Falalka uu ruuxu samaynayo haddii uu mar walba ku xidho in ay noqdaan waxa uu damiirkiisu u yeedhinayo, codka wanaagsan ee uu guntiisa hoose ka maqlayana uu u dhugma yeesho, waa hubaal inaan laga eed sheegan doonin, bulshaduna ay u bogi doonto samaantiisa. Dhismaha bulshada ee ay dowladnimadu ka unkanto waxaa ka bilowdaa isxilqaanka qofka, ammaanka nafta, jidka iyo goobaha dadweynaha ka dhexeeya. Qof walba xil ayaa ka saaran, xilkaas gudashadiisuna kuma xidhna garasho la'aanta dowladda ama bulshada inteeda kale. Haddii aad jeceshahay in naftaadu noolaato, dhib in loo geystana aadan ogolayn, waa inaad ogaataa in kayrkaana uu kula mid yahay. Damiirkaaga sidaa kuu yeedhinaya waa in aad u hoggaansantid. Haddii aad nacab tahay in waddada lagugu ciriiriyo ama in lagu diido fursad aad iskuiska kaga gudubtid, kayrkaana ha ku samayn sidaas oo kale. Haddii aad nacab tahay in lagugu fadeexeeyo bulshada dhexdeeda, kayrkaa sharaftiisana dhow. Haddii ay kula xun tahay in jidka aad maraysid xal lagu shubo ama qashin lagu soo dhigo, waddada kaa horaysana ka ilaali wax kasta oo aad waddooyinka kale ku dhibsan lahayd. Haddii aad nacab tahay in xoolahaaga la dhaco, qofkii kaa dhacana aad tuug ku sheegayso, adiguna xoolaha dadka kale ama dadweynaha iska ilaali oo ha dhicin. Sidaa ayuu damiirku kugu sheegayaa waxa ugu yar iyo waxa ugu weynba.